salaan kadib sharaf ay ii tahay inaan maanta aan ka soo qayb galo munaasabadan xarig jarka hoteelkan casriyeysan ee quruxda badan ee Ruun Jannaad oo ay samaysay xildhibaanad Bishaaro Gaabey Bishaaro Cali Nuur oo ah halgamaa weyn oo lafdhabar u ah ganacsiga reer Koonfur Galbeed iyo hormuudna u ah dhismaha dowladnimada iyo wadaniyadda iyo daljacaylka hormuud u ah sharaf ay tahay runtii waana wax lagu faano inaan maanta isugu nimaano xafladan quruxda badan iyo hoteelkan quruxda badan oo laga fuliyay magaalada Baydhabo oo ah caasimadda ku meel gaarka ee Koonfur Galbeed xaqiiqatan ganacsiga iyo isdhexgalka bulshada iyo maalgashiga waa horumar wuxuuna ka bilowdaa markii dawlad u diyaarsan inay soo dhaweyso ganacsatada reer Koonfur Galbeed iyo maalgashadayaasha hantida Ilaahay uu siiyay oo deegaankooda maalgashanayo markii la helo dawlad u diyaarsan oo ku dhiirigelinayso oo soo dhaweynayso oo ka ilaalinayso wax allaaliyo wixii daruufo ay dhibsanayaan si ay ganacsigooda iyo horumarkooda u ballaariyaan markii la helo iyo mashaariicdan oo kale iyo maalgashigan oo kale uu fulaa marka waxa Ilaahay mahadiisa ah dawladda Koonfur Galbeed inay u diyaarsan tahay diyaarna ay u tahay inay soo dhaweyso ganacsatada reer Koonfur Galbeed inay dalkooda maalgashtaan dadkoodana maalgashtaan ayna abuuraan shaqo abuur annagana aan gacan weyn ku siino oo dhinac kasta taabanayso oo ah in aan u fududeyno wixii tasiilaad dawli ah aan u fududeyno aan ka ilaalino hoos u dhaca dhaqaalaha ku imaanayo iyo wax allaaliyo wixii keeni karo dhumin dhaqaale ama khasaare keeni karo aan ka kabno dhinac kasta annagoo ka ilaalinayno marka waxaan soo dhaweynaynaa oo mar walba garab taaganahay ganacsatada iyo maalgashadayaasha reer Koonfur Galbeed inay dalkooda iyo dadkooda iyo deegaankooda ay maalgashtaan ayaga oo la shaqeynaayo dawladooda kuna garab taagan dawladnimada iyo amniga intaba waxyaalaha maalgashiga uu muhiimka u yahay waxaa ka mid ah oo ganacsatada laga rabo naftirkooda inay qayb ka noqdaan amniga deegaanadaas hadduusan amni jirin maalgashina ma jiraayo ganacsina ma jiraayo horumarna ma jiraayo marka waxaa muhiim ah in ganacsatada ay ka shaqeeyaan sidii uu amni ay ku maalgashtaan dalkooda oo ganacsi ay u sameeyaan oo dhaqaale u sameeyaan ay u sameyn lahaayeen mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u hambaliyeynayaa ganacsada Bishaaro xildhibaanada hambalyo runtii aad baan ugu faraxsanahay maanta bilicdan iyo quruxdan tirada badan oo soo muujisay waa culays annaga dhan dawlad ahaanna saarnaa oo aad gacan naga siisay oo naga qaaday saa og tahay waxaan ugu soo socdo munaasabado tiro badan annagana sharaf ay noo tahay adigana business ay ku tahay faa'iido munaasabadahaas oo dhan iyo marti sharaftaas imaanayso yaa mas'uuliyad ay qayb ka tahay inay helaan service fiican inay helaan meel fiican ay degaan inay helaan meel qurux badan la yiraaho waxaan ka degnay Koonfur Galbeed meel fiican service fiican adeeg fiican hotel fiican jiif fiican cunno fiican soo dhaweyn fiican intaas bay la helo annagana sharaf ay noo tahay adigana business ay ku tahay saa la socoto waxaa nagu soo food leh guddigii hal u helidda doorashooyinka iyo technical teamkii loogu digay Baydhabo inay ku shiraan berito meesha ugu horeysay degayaan ay noqon doontaa waxaa imaan doona shirar kale waxaa imaan doono doorashadii oo ay inta ay tahay meesha ugu tirada badan ee xildhibaanada Soomaaliya lagu soo dooranayo marka intaas oo dhan waxay u baahan yihiin soo dhaweyn iyo deegaan iyo meel ay degaan
marka way ad ka faa'iideysan doontaa. waxaan kaloo si gooni ah aan kugula dardaarmayaa in uu noqdo ganacsigaada ganacsi hufan oo dadka lagu soo dhaweeyo oo adeeg fiicanna loo helo kana shaqeeya nabadgelyada lana shaqeeya dowladnimada ayna noqonin meel lagu dhibaateeyo dowladda lagu dhibaateeyo dadka reer koonfur galbeed ummadda xanteeda iyo dhibaatadeeda looga adeego aysan noqonin ay noqoto meel looga shaqeeyo wanaagga iyo horumarka dowladda insha allahu yaan dardaarankeeda ku leeyahay aada iyo aada u mahadsan tahay. waxaan kaloo u mahad celinayaa kasoo qaybgalayaasha oo kasoo qaybgalay xafladdan ugu horeeyaan odayaasha dhaqanka iyo xildhibaanada iyo wasiirada iyo siyaasiyiinta kale ee jooga. aada iyo aada u mahadsan tihiin sharafay ii tahay. hambalyo waxaan kugu rajaynaynaa horumar intaan ka ballaaran. waxaan kugu rajaynaynaa barako xoolaha iyo businesskaba allah kuu barakeeyo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi